السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر وهذا حقيقة سيدة وحان ربا إن عوضتن إذن سو بندقو عوضت عدي معه أو متقانا إيشيك أي اسكو ويرين قوانا اللي يرادو أو فنانة نجم نشاط إيا فنانة كله اللي يرادو اسم الصباح دقال كان أيو وحا ودحيا دقال فنات وي سيدو كله ودقال أريمات شعيلة si toos ah ayaa la iskugu hanjabayaa codad sir ah baan idin shidayaa muuqaalkan hadduu ku soo gaaro sii share garay videoga like garay maqaaxidana subscribe saaro dagaalka kan ayaa maalmahan aad u socday muuqaaladan caaway soo bixin codadkan sirta ah waxaan rabnaa inaan isla dhageysano telegram baa la iskugu hanjabayaa telegram waa inoo telegram bay ku haysaa asmo bal asmo waxa ay tiri aan isla dhageysano afdhoolna waa laba leeyahay wiciyaa mikadan kula hadlayaan Mubarak October klibiyada kugula tumanay daawanaya adigoo nolosha ka dhacay adigoo waxa la nashaadey afdhoolna waa laba leeyahay wiciyaa mikadan kula hadlayaan Mubarak October klibiyada kugula tumanay daawanaya adigoo nolosha ka dhacay adigoo waxa waxay leedahay klibiyadii oo kugula tumanayay baan hadda daawanaya ay leedahay waa ninka la yiraahdo Mubarak alfana Mubarak waxay leedahay klibyo waxa haya Najm Nashaad oo Mubarak la tumanaysa waxa dhahaysa asma sabax bal asla dhageysano muuqaalka xiga jirtay Mubarak October kula tuman jirtay waan haya klibadaadi imikan soo dhigaya telegram haday noqoto meel walba hadaan ku soo dhigino adduunyada ceeb uga bixin oonan ku telegram baan soo dhigaya beetri xaaladu ma fadhido abo عبسي واي والله بل هيا سيدا مصبن هدانا اوين بان كوريد waxa tahay dadka barwaanaagmay asma iyada eegin aniga ee qadari muuqaaladaas yar farxaaga ka baxsanin waa wiilkayga hooyadii wiilkayga mustaqbalkiisa ka fikir asmo iyada eegin waa asmo oo laga baryayo inay muuqaalada fasixin fanaankii wiil baa soo wacaya oo wuxuu leeyahay oo aan u maleynay inuu Mubarak yahay inuu qof kale yahay ma xaqiijin karo laakiin wuxuu ka codsanayaa muuqaaladan inay sii deen muuqaaladan inay sii deen boo ka codsanayaa xaaladu farahay ka baxday bal aan isla dhageysano sharaf markii hargeysa sharaf ka weeday xamar sharaf ka raadinaya inna ilayhi wa inna ilayhi raaji'un xaaladu caadi maaha dagaalkan ayaa wuxuu u dhaxeeyaa Najm Nashaad iyo asmo fanaanada la yiraahdo oo ah gabadhii farxiya fiska ka qaaday Mubarak codadkan sirka ah ayay isku wadaarsadeen barta WhatsApp-ka asmo waxa ay leedahay muuqaalo baan hayaa oo toos ah baan hayaa waxaan geenayaa ay leedahay telegram baan soo dhigayaa bay leedahay Najm Nashaad ayaa gacan ku gabad ah cawadatan waxaanu sugeynaa jawaabta ay soo bixiso Najm Nashaad ayaan sugeynaa muuqaalada la sheegay in laga hayo ma sax baa mise waa been abuurasho waxaan sugeynaa jawaabta xigta ay ka soo bixiso Najm Nashaad dagaalkan ayaa ah dagaal aad u qaraar waa dagaal faneed waa dagaal jacayl dagaalkuna sideeda hadduu laba iskugu darsamo dagaal faneed iyo dagaal jacayl labadaba haday ku soo galaan xaaladaas xaalad caadi ma ahan xaalad la qabooji kara ma ahan dab la dabi kara ma aha mar haduu dagaalku yahay jacayl iyo fan haduu yahay waxba laga qaban karo waxay ku soo kordho muuqaalada xiga baan ku daawan doonaa haduu Ilaahay yiraahdo sii share gareeya videoga kan oo dad badan gaarsiiyo asxaabta ah aad baan idin salaamayaa tan muuqaalka xig kulmi doono waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo